kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ka badbaaday isku day dil iyo laamaha amniga gobolka Banaadir oo howlgallo ka fuliyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan daawaday haddii aad ugu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal qarax weyn oo jugtiisa laga maqlay xaafadaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa maanta la eegtay xogayaha degmada Kaxda Ibraahim Muxiidiin Macow qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa xogayaha la eegtay xilli uu marayay isbitaal halkaasi ku yaalo waxaana la soo sheegayaa inuu ka badbaaday mas'uulka isku dayga dil ee loo qorsheeyay wararka aanu helayna waxay sheegayaan in qaraxa la eegtay xogayaha degmada Kaxda uusan ka dhalanin wax khasaare nafeed ah marka laga reebo burbur yar oo gaaray gaariga xogayaha qaraxa la eegtay xogayaha ayaa waxaa durbaba sheegatay mas'uuliyadiisa kooxda al-shabaab oo iyada dhowr jeer mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaasi qaraxyo miina ku dishay al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe kordhisay weerarada iyo qaraxyada ay fuliso xilli gobolada dalka qaarkood ay kaga socdaan dagaallo culus oo kooxda lagu gaarsiiyay jab xoogan qaraxan ayaa ku soo aaday iyadoo ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan Muqdisho howlgalkaasi oo ku soo beegmay kadib weerarkii al-shabaab ay ka fuliyeen Hotel Villa Rais oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya howlgalkaasi oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa fuliyay ciidamada booliiska qaybta Waliyow Cadde waxaana si gaar ah looga sameeyay degmada Xamar Jajab sidoo kale waxaa qayb ka ahaa howlgalka ciidamada booliiska Xamar Jajab iyo maamulka degmadaasi iyadoo ciidamada ay isku fidiyeen xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay dad u badnaa dhalinyaro kuwaasi oo hal goob la isugu keenay waxaana halkaasi kula hadlay saraakiisha ciidamada oo ka dalbaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga iyadoo kadib la sii daayay dadkii la soo qabqabtay Isaaq Maxamed Ciise oo ah taliyaha qaybta Waliyow Cadde oo la hadlay warbaahinta howlgalkaasi kadib ayaa sheegay in ujeedkoodu uu ahaa la dagaalanka kooxaha ku howlan amni darrada kuwa ka ganacsado maandooriyaha iyo burcadda dhaca u geysto dadka rayidka taliyaha ayaa intaasi ku sii daray in howlgalka uu sii socon doono isla markaasina ujeedkoodu uu yahay sidii loo sugi lahaa guud ahaan amniga degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Mayre Makaraan oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gaaray deegaanka Biyacadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo kamid ah deegaanada laga saaray al-shabaab gudoomiyaha iyo xildhibaanada ayaa socdaal ku soo maray wadooyinka soo galo deegaanka iyo kuwa ka baxa waxaana shacabka deegaanka ay u muujiyeen soo dhaweyn iyo sida ay ugu faraxsan yihiin in mas'uuliyiinta ay soo gaaraan deegaanka Biyacadde mas'uuliyiinta ayaa ku dhiirigeliyay ciidamada dib u xoreynta deegaanka ee macawiisleyda in ay iska difaacaan weerarada al-shabaab deegaano badanna laga saaro kooxdaasi gudoomiyaha ayaa sheegay in al-shabaab ay dib u dhigeen deegaanada ay ku sugan yihiin balse hadda deegaanada lagu xoreeyay dawladda ay ku dadaali doonto in shacabka la gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ee bulshada salaamu ala rasuulillah مسافرنا صلاة وسكرنا لكن ده مسافرين وجوه هديان جوديا هذا دوم حسنتي لمان اللي بانا ده قرنكا هي سراكيشة ديجان كان لمان بلشة غيبة هذا كل الدجان أو نوع كسلة إذا ما ده قلب كسيدو غيبة هذا كل الدجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي بقى ما هذا إسكاله هذا قبضوا نصيب بدنا يد ليهين أنت أنا حل بانا يا مسؤولين لصعطوا أفر بدن أنا ما أنت إذا تمت أو اللي بعد هذا ضل كان هيستي أو قيبا كهذين أي ما أنت إذا قرمت إذا كجيهين أما إذا قرب تاجيهين وواحد ونكسن نصيب كان عاد إذا كهشنا dad badan ayaan helin waarna xildhibaanada ayaa maartay
hadalka sida badan qaatay hadalkuna haddii dadka loo jeedin ani indhahaaba faar lagaa qabtaa hadalku xaatay waa iga dhiye markii dadka la hadlay uma jeedo waxaan rabnaa marka ugu horeyso xildhibaankiina waa xildhibaan aad iyo aad u nasiib badan waana maaragtay wuxuuna ku muujiyey nasiibkiisa kartida iyo dadaalka uu sameeyey xildhibaanada aan u jeedino garabka ka taagana maanta waxay asiga u yihiin garbay u yihiin berina waxaa la rabaa inuu garbo u noqdo ayaga meel dhiman deegaankay ayagana sidaan oo kale u abaabul lahaayeen waa dhiman yahay maanta marka waxay qod ka abaabulu hayaan deegaanada loo mari lahay iyo wadooyinkii loo mari lahay qoryaha in laga qaaday maaragtay diyaar u yihiin asay u taagan yihiin muddo dheer 2 bil ugu yaraan waxay joogeen cadale meel kastoo laga howlgalayna way tagayeen intaas waxa waaye marinkii loo mari lahay meesha loo socdo ay ayagu u socdaan dadkii deegaankan sidaan oo kale ugu abaabul lahaayeen ayaa wali dhiman waxaan rabnaa annagan hadduu Ilaahay yiraahdo gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ka dhiman dhinacaan hadda aan socono jahada lagu aadan yahay hal degmo iyo degmo haaf laga hayaa naga dhiman haddii xatee intaas la xoreeyo intaana qorax dhacaadi gobolka Shabeellaha Dhexe meel kale laga heystaa dhinaca qorax dhacna waa laga heystaa laakiin waxaan intaas meeshaas aan aadin xildhibaanadii anaga shalay garbaan naga taagnay ee dhiiri gelihay ee nala socday ee abaabulka sidaan oo kale noola waday ee qoraxda iyo waqtiga dhibka badan nala maray ma keerayna birito maya ya codka waa yar wili ma codka ma qancani waxaan rabnaa sidaas oo kale inaan haddii balaayo hadday diriskaaga ku jirto in diriskana laga baxshay astaalkeeda haddaanan diriska laga bixin waxay naqahaysaa inay kugu soo noqoto diriskaaguna ay baabi'iso marka diriskayna xatee ku dhaafi mayno intii ummadda Soomaaliyeed meel kamid ay ku jiraan nimankaas anaga maartay qalabkan ka daba qaadayna balantayna sidaas ma tahay aad iyo aad u nasiib badantiin madaxweynaha qaranka wuxuu geeyay Nuur Dugle xildhibaankiin halaha uu sameeyay dadaalka iyo meesha uu maray berina waxa laga yaabaa inuu inta yimaado intaasuna dadaal ay ku yimideen waxaan idin sheegaynaa nimankaasi ummadda intay dhibi lahaayeen way dhibeen maantana way ka tageen ilaahayna ummaddan uma soo celimaa ilaahayna nagu soo celimaa waxaan rabnaa shabaab kuma jira hadda deegaankan aad idinku ku nooshiin laakiin waxa la rabaa waxa ku jira inaad maartay ma taqaanin jaanduug beer waa fal jirteen beera leediin jaanduug ma taqaanin hadda sii jeesatay galabta soo bixi maayo kuwaasoo kala la rabaa inaad ka wisiin shooka inta qaadin haddaad ka wadiidin idinka dhibaato ka shaqeey ma sawa bentay waa taqaanina oo malaa kuwaas codkiina waa yiri haddaad walaalnimo ka rabtiina waa abeesidu kuma qoro farqiidu kugu jirto idinkaynida cunaysa marka intaysan idin cunin inaad sharciga hor keentiin sharcigana la marsiyo la soo ogaado ayagu waxay dhigi jireen waa lagu dhaqa naagtana waa lagu xira naag ilma dhamaysa waad ay leey waa lagu siin nikaaxay dadka dhigi jireen sida ilaahay beenta ay diinta ka sheegayna ka hadar dhibaatadeed marka waxaan rabnaa anagu noocaas dhiimayno dad islaam ahana laakiin waxaan tusaynaa waxa la nin la xiray inta ka gaabana leeyahay darbiga la dhaxgeela darbiga la hadla kadibna soo fiican oo ummadda dhaxgeli kara ayuu imaaha hadduu ummadda dhaxgeli waayana sidiisa loo dhaafsay ummadda lagu soo celimaaba waxaan idin rabnaa markay jaanduuga asaa ku jiro heerka sidoo xildhibaanka u sheegay waxaan rabnaa qoragii aan qoryahan meesha qaad aysan qaadin oo dadka meesha noolaysa aysan nooleen dadkan meesha ku nool yihiin aan anficin qaamu qashira u qabaana lagu gubaa soo sheega waa idin sheegaynaa kaas waa nooc kale cid kale u shaqeeya nalama shaqeeyo kaas haddii uu diido oo idinka war idinka diido waa soo gudbaysiin asna waa la xiraa qoragan wiila u dhiibaysiin oo idinka aad ogtiin aad u mahadsantiin waxaan rabnaa inaan la hurdin inaan la nasan meel lagu nasa iyo meel lagu hurdo ma joogo intay nimankan kaadka noogu jiraan ninkii haayana hadda ha noo sheego ma soo beentayn ninka qoraya wata 9 bilood ku dhashay waana la mid waxa oo wato barnaamijyo asigiisa soo dhaadhacsho wata asoo wuxuu rabaa inuu annaga maartay nooga dhiga diinta islaamku waa yaqaaniin dadkan seef laguma islaamin xoogna laguma islaamin
ilaahay ayaa la dooray islaamnimada waxayna ku qaateen khiyaarkooday ku qaateen intaasoo oo sanayna maartay dad muslima yihiin hadday islaam ay yihiin ay diin u dagaalamayaan meelaha aan diinta ka jirin inta tagaan ka dagaalamaano hadday run sheegayaan ay islaam ay yihiin laakiin waxaan dilaa meel laga addimayo nin masaajidka ka soo baxay oo hadda ilaahay maartay hortiisa taagnay oo bannaanka ba tiginoo weli qof bilaadan oo kale la hadlina madax ka gooya koo kitaab akhrisaayna kitaabkan kor saara diinna waa sheegaha cidda uu sheegayo kaas asigaa yaqaan waxaan rabnaa marka fulannimo wax tinime fulannimana maartay malakamay naga celime haddaad cabsatid iyo haddaad maartay baqdid waxaa layidhi doqonayaal lagaa dirnay u dagaalaada waa laga soo tegey hadda qoryihiinna haysatiin galabta waa cayaarayseen dadku xoogaa waa naqaskaa ka bax ma cayaari jirteen ma siisuy ma jirteen heraqab ducwaysan qaannaa laba ninaa meelahan fadhi jirta say tumi jireen laba qofoo soo bixi jirta xatee ma jirto beenaan sheegaynaa waxaan rabnaa hadda kadib yaysan kuwaas noo soo naqan wax aan raadihaynana ama aan ka hadlaynana oo madaxweynaha ku baaqay oo xildhibaanada qorraxda u taagan yihiin iyo maartay meelaha aan jiif fiican lahayn oo baadiyahan ay noola joogaan waxay tahay xornimadayna waa adduunyadana xornimada ayaa ugu sharaf badan intii la raadsho xornimada ugu qiimo badan waa inaad xor ahaatid oo qof xora oo ilaahay addoonkiisiiya oo ma warraba aaday ma warraban ka danaysaa in ahaatid laakiin addoon ilaahayna qamaysiin anaa addoon ii taa lama qaadan karo taasuna waxaa dhaantay geeri ma fahanta inaad maartay dhereg ku noolaatid ee dhereg gunnimo leh ku noolaatid waxaa ka roon gaajo oo gobonnimo inaad ku noolaatid waxaan rabnaa gaajana ma hayso oo xoolaynaa haysanaa xoolahaynay rabaa inay nugula noolaadaan ay guryahayna nugu cabiidsadaan ay deegaankayna nugu addoonsadaan ay gabdhahayna siday rabaan ugu xadgudbaan annaganaan ka hadli karin waxaasina wax la qaadan kara maahan sharafka iyo karaamada bini'aadankuna qofka hadduu sharafkaaga u yimaado iyo hantidaada iyo naftaada u yimaado wax inaad wax daawamarsatid waa xaaraan waxaan rabnaa markay raqabdacow sidaad soo baxdeen in dadkeediyaa tihiin xildhibaankiinnu oo maanta idin matelaayana inta uu jiifo duurka waa ogtihiin welina waa idin garab taagan yahay xildhibaannadaanna la kadaaliku dhammaantayna sidaasaa wada taaganna inaan la nastana ma jirto ilaa shabaab ay waddankan ku jiraan ilaahay ummaddan u soo celima shabaab way tageen niyada ka saara way tageen shabaab ummaddaanna way dhaafeen dawladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed qof la arkay gurigayga iga baxay tiri adiga gurigaayow kaa soo geli marka hana noogu bararin marka gurigaaga haddaad noogu haysido meesha ku weynaado dadka kale cunaa marka qof la arkay gurigeeda ka ceshatee gurigayna aan ka ceshan annagana taas ballantayna ma taa aad iyo aad u mahadsantihiin shaqo wanaagsan mar kastana waa idinla joognaa waana idinku soo nanaqaynaa wax allaale wixii baahida ku saabsanna hadduu ilaah yidhaahdo waxaaba u maleeyaa kuwa oo qoryaha kay hayo waxaan rabnaa maanta macawisleyda wax baan u keenne laakiin nimanka qorya leh oo geesinimada muujiyaa la siiyaa kuwa guryaha jira la sii maaha hadday soo kudaan hadhowta kuwa dambe wax ku leediinaa leey waa ogaanay dad hunguriyaa keenaya marka hungurigaas hadduu u soo ordo hadda wax ku melid hala yidhaahdo markii halay bannaanka joogo maalmahan aa iskale adiga waxaad leedahay kan dambaa leedahay horta 10 habeen iyo 20 habeen ha joogo asoo qasaasigan saas ma ballantayna aad mahadsantiin waxa ballantaynu waa inaan shabaab la dagaalno shabaabna aan waddankeena ka sifayno jaanduuga taasaan oo ballana guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo